madaxda halkan isugu timid qaranka soo dhawaada dhamaanteen ba meel kasta aan ka nimaadnay waxaan u shaqeynaa qaran isku bax xaqlaha koobaad ee Soomaaliland baan tirsanaa markaan waxyaabo badan eegno sida awgeed baan idin soo dhaweynaynaa ina cagtan ugu badsaano soo noqotaan sida noo fahamtaan maayirka degmada Buurama Salebaan Xasan Xaddi barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Cumar Sayid oo iyaguna gunaanadka shirkani ka hadlay ayaa sharaxay qodobada lagaga wada hadlay shirkii aan isugu nimay magaalada Burco oo ballanteedu ahayd markii hore inaan halkaas ugu nimaadno ballantan qabsanay oo ahaa gudida farsamo ee maamul daadejinta oo 45 maalmood ba hal mar qabsooma si fiican buu noogu dhamaaday waan u mahadnaqaynaa reer Burco iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo sida ay noo soo dhaweeyeen runtii shirkan wuxuu ahaa shirkii 14aad ee gudida farsamada ee mashruuca maamul daadejinta GPLG had iyo jeer ay adeegga bulshada loo hayo iska kaashanayaan dawladda dhexe gaar ahaan wasaaradaha waxbarashada caafimaadka hawlaha guud gaadiidka iyo wadooyinka biyaha iyo dawladaha hoose degmooyinka Somaliland ujeedada shirkuna waxa weeyaan in la kala faa'iideysto khibradda degmo walba adeegga caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wadooyinka iyo hawlaha kala birashadaba sida ay u qabtaan in degmooyinku ay experience sharing sameeyaan oo khibrad la kala faa'iideysto waxa halkan ka furmay shirkii 14aad ee mashruuca maamul daadejinta ee degmooyinka gobolka jamhuuriyadda badankooda ay ka shaqeeyaan mashruucaas oo runtii ah mashruuc faa'iido badan ku soo kordhiyay degmooyinka uu ka shaqeeyo oo runtii aan jecel lahay inuu insha Allah bidilaahi baari degmooyinka kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu gaari doono waxaan runtii ku amaanayaa gudoomiyaasha degmooyinkooda mashruucan ka shaqeeyo sida ay uga faa'iideysteen maaragtay degmooyinkooda uga faa'iideeyeen ayaan ku amaanayaa waxaan kaloo amaanayaa wasaaradaha la shaqeeya mashruucan oo iyaguna runtii waqti badan geliyay inuu noqdo mashruucan mashruuc miro dhala shirkan oo ahaa maalin waxa weeyaan hadda uu inoo soo gabagaboobay waanu inoo soo xidhmay dhammaan ka qaybgalayaasha waa u mahadnaqaynaa gobolka Togdheer caasimadiisa Burco ku soo dhaweynayna